madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku xaqiijiyay in weerarkay maanta ciidamadiisa ku qaadeen magaalada Caracas ee caasimadda dalka Venezuela ay ku soo qabteen madaxweyne Nicolas Maduro iyo xaaskiisa. Weerarka oo qaatay 6 saacadood oo kaliya ayaa waxaa fuliyay ciidanka Mareykanka ee Delta Force oo ah qaybta ugu sarreysa ee militariga Mareykanka ee la dagaalanka argagixisada. madaxweyne Trump wuxuu sidoo kale sheegay in dalkaas laga bixiyay Maduro iyo xaaskiisa isla markaana loo qaaday waddanka dibaddiisa. dalka Mareykanka ayaa si guul leh u fuliyay weerar ballaaran oo ka dhan ah Venezuela iyo hogaamiyahooda madaxweyne Maduro, kaas oo isaga iyo xaaskiisa labadaba la qabtay lagana duuliyay dalka, ayuu yiri Trump. Donald Trump ma uusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida loo qabtay Maduro ama meesha loo qaaday. Mareykanka ayaa muddo raadinayay soo qabashada madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro, wuxuuna horey u ballan qaaday abaalmarin dhan 50 milyan cid kasta oo bixisa macluumaad horseeda qabashada Maduro. haddii aan dib u milicsano sooyaalka xiriirka ka dhexeeyay Mareykanka iyo Venezuela, waxaan arkaynaa sawir ka duwan midka maanta jira. intii u dhaxaysay sanadihii 1950 ilaa 1990, Venezuela waxay ahayd xulafada ugu muhiimsan ee Mareykanka ee koonfurta qaaradda Ameerika. xilligaas xiriirka labada dal wuxuu ku dhisnaa dano dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo qoto dheer. Venezuela waxay ahayd isha ugu weyn ee Mareykanku ka helo shidaalka, taas oo ka dhigtay lamaane muhiim u ah amniga tamarta ee Washington. shirkadaha waaweyn ee Mareykanka ayaa gacanta ku hayay farsamada iyo soo saarista saliidda Venezuela, iyadoo dhaqaalaha dalkaas uu si weyn ugu tiirsanaa suuqa Mareykanka. si kastaba ha ahaatee, sanadkii 1999 wuxuu calaamad u ahaa dhammaadkii xilligii saaxiibtinimo iyo bilowga xilli cusub oo ay ka buuxdo ismaandhaaf iyo iska horimaad dhanka diblomaasiyadda ah. markii uu talada dalka la wareegay Hugo Chavez, waxaa isbedelay jihadii siyaasadda ee Venezuela. Chavez wuxuu keenay nidaam loogu magac daray kacaankii Bolivarianka, isagoo ku dhawaaqay inuu dowladeeyay shirkadihii saliidda ee Mareykanku maamuli jiray, bilaabayna inuu dhaleeceeyo saameynta Mareykanka ee gobolka, isagoo xiriir dhow la samaystay dalal ay ka mid yihiin Ruushka, Shiinaha, Kuuba iyo Iiraan. laga soo bilaabo xilligaas, xiriirka labada dal wuxuu isku bedelay mid cadowtooyo ah oo ay hadheeyeen cunaqabateyno dhaqaale iyo kala go' diblomaasiyadeed oo saameyn weyn ku yeeshay nolosha malaayiin qof oo u dhashay Venezuela iyo guud ahaan xasiloonida gobolka.